بسم الله الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. أيها الأخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بناء على الرؤية العالمية، يوم غد الاثنين هو أول أيام شهر رمضان لعام 1445. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. walaalayaal, maanta bisha Shacbaan waxay ahayd 29, maanta Axad ah, caawa oo Isniin ah, Isniin soo gashay ayaa la filayay inay bishu dhalanayso. meelo badanna laga fiirinayay. ilaa hadda dawlado badan ayaa iclaamiyay in ay arkeen bishii, saas daraadeed berri oo Isniin ah inay bishii Ramadaan kow tahay. innagana caado waxaa noo ahayd aragtida hore caalamiga ah kulba meeshii laga arko inaan raacno, waana sida culimmadu u badan yihiin oo jumhuurtoodu qabaan, waana sida suurtagalka ah. marka berri haddii alla idmo iyo caawaba bishii Ramadaan baa inoo dhalatay. ilaahayga nabad inagu gaarsiiyey baa mahad iska leh. ilaahay baan weydiisanaynaa tabaaraka wa tacaala inuu wanaaggeeda ina waafajiyo, acmaashana inaga aqbalo ayaan allah weydiisanaynaa tabaaraka wa tacaala. aragtida maxalliga ah ama Kenya ama Soomaaliya ama deegaamadan ilaahay hadda wax soo sheegay maana arkin, ma hayno. saas daraadeed waxaan ku soomayno waa aragtida caalamiga ah. dawlado fara badan ayaa sheegay inay arkeen, oo weliba ma aha xisaab ma ah. inta badan ma raacno. dawladaha qaar waxaa jira xisaabta falagka ku sooma, laakiin annaga waxaan raacnaa meeshii aragti laga sheego ee u horeysa ayaan inta badan raacnaa. sidaasaan berri ku soomi doonaa insha allahu tacaala. taqabbal allahu mina wa minkum saalix alacmaal. hadda salaad taraawiixdaan tukan doonaa biidn illahi tabaaraka wa tacaala. masaajidku waa cidhiidhi, waxay u baahannahay in laisu dulqaato. masaajidka darishadihiisa iyo albaabadiisa kulli waa inay furnaadaan. ciddii darishada dabaysheedu dhibayso ha ka fogaato, laakiin darishad la xidhi karayo albaab ma jiro. ta kale, dabaqa koobaad oo qeyb dumarka loo gooyey, insha allahu tacaala marka la gaadho salaada maqribka wixii ka dambeeya dabaqaas oo dhan dumarku u xidhnaan doonaa. ragga waxaa lagu tukanayaa dabaqan midkan koobaadka ka koreeya ee labaad iyo dabaqa saddexaad iyo labada masaniin ee dhexda ku jira ayaa lagu tukanayaa. masaajidku marka qeybtiisii hore dhismaa ku socota, cidhiidhigaasaa jira. waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala masaajidu waa bateen, meelo badan baana masaajidu ka jiraan. inta masaajidka cidhiidhigu ka jiro ha la iskala fududeeyo, masaajida kale insha allahu tacaala ha la kala aado. xoogaa culayskana ha la kala fududeeyo. allah idin barakeeyo, alla isuna dulqaato. dadka dhallinyarada ah ee volunteerka ah ee idinkala hagi doona ee barnaamijka ku mashquulsanna ha loo dhagan nuglaado biidn illahi tabaaraka wa tacaala. sidii caadiga inoo ahaan jirtay baan taraawiixda ku tukan doonaa waqtigeeda. ilaahay tabaaraka wa tacaala haynaga aqbalo. wixii kale tafaasiil ah ee sida wax u socon doonaan ama barnaamijku u socon doono insha allahu tacaala awal fa awal baa laydinla socodiin doonaa insha allahu tacaala. masaajidka iclaamaadka ka bixi doona, duruusaha ka bixi doona, kelimaad ka bixi doona, waana la soo dhejin doonaa, waa laydin sheegi doonaa insha allahu tacaala. wassalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu. رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وأذهب غيظ قلوبنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا
وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أغننا بالعلم، وزينا بالحلم، وأكرمنا بالتقوى، وجملنا بالعافية، واجعلنا ممن سبقت لهم منك الحسنى وزيادة. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم